الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم شيكدا أفري لباتنات الأرنب والسنور بكيليو بسدبديد توكايري waxaa daris la ahaan jiray shimbir waradhaadha ah waxayna god ku lahayd meel u dhow geedka aanbuulka ku leeyahay waxaana dhex maray xiriir iyo wada noolaansho dheer wayna raagtay darisnimadayadu mar ayaan tibay mana garan meesha ay ku baaday waana dheeraaday maqnaanshaheedii ilaa aan uga maleeyay inay dhimatay waxaa yimid godkeedii bakayle oo degay waxaan nacay inaan kula doodo meesha oo u sheego in waradhaadha meesha lahayd oo aanan garanayn waxa ku dhacay mudduu meeshii ku dhaqnaa bakaylihii oo ku noolaa waxaase soo noqotay waradhaadhaadii markay aragtay meesheedii oo bakayle degan yahay ayay ku tiri meeshan anaa lahaa ee iiga guur bakaylihii ayaa yidhi meesha anaa degan waxayna ku jirtaa gacantayda adna waxaad tahay sheegato ee haddii aad haysato caddaymo soo oogo shimbirtii ayaa tiri meeshu waa meeshaydii waxaan na haystaa markhaati iyo caddayn bakaylihii ayaa yidhi waxaan u baahannahay garsoore intaan wax la caddaysan shimbirtii ayaa tidhi garsoore waa inoo dhow yahay ee inakeen aan u tagnee bakaylihii ayaa yidhi oo waa kuma garsoorahaas shimbirtii ayaa tidhi waa bisadabadeed cibaado badan maalintii wuu soomaa habeenkiina waa tukadaa cidna waxuma dhimo xayawaankana ma cuno cawska iyo caleentuu cunaa inoogee ha ina kala saaree way israaceen aniguna waan raacay si aan u soo ogaado xukunkiisa uu ku kala xukumayo waa u tageen iyagoo ka yara cabsanaya isaguse markuu arkay iyagoo ku soo socda oo uu meel dheer ka arkay ayuu iska dhigay mid tukanaya bakaylihii ayaa la yaabay waxay ku aragtay markuu la hadli waayay ayay ku dhowaadeen iyagoo weli ka cabsanaya waxayna ka codsadeen inuu kala xukumo oo u garnoqo wuxuu yidhi haye warka soo daaya maxaad isku haysataan wuxuu kaloo yidhi waxaa i saameeyey gabowga iyo dhagahaygii oo aan wax si fiican u maqlayn oo waxaan ku dhowahay inaan idinba maqli waayee ii soo dhowaada si aan idiin maqlo way u dhowaadeen oo waxay ugu laba celiyeen sheekadoodii iyo waxa ay ku muransan yihiin markaasuu yidhi waan fahmay waxa idin dhex maray waxaanse idiin horraysiinayaa waano iyo wax sheeg intaanan arrintiinna xukunka gaadhin waxaan idin leeyahay weligiin waxaan xaq ahayn ha doonina oo ha ku doodina maxaa yeelay xaq doonuhu waa kan faa'iiday haba laga xukumee gardaradoonkuna waa kan laga garhelay haba loo xukumee uma sugnaan kii adduun doonay adduunka gudihiisa waxba xoolo iyo saaxiibnina ilaa shaqo wanaagsan oo uu hormarsaday mooyee kan caqliga wanaagsani waa in waxa uu ku hawlan yahay ay noqoto shaqo uu berri aakhiro ku guulaysto waana inuu iska dhowraa wixii aan waxaa ahayn darajada xoolaha kan caqliga leh agtiisa waa darajada ku dayashada darajada dadkuna agtiisa waa wixii ay jeclaadaan oo wanaaga uuna la nacaa sharka iyo dhibta siduu naftiisaba ula naco dhibta sheekadii ayuu u waday wuxuuna ahaa mid u soo dhowaanaya hadba iyaguna ay macaansanayaan oo u heshanayaan ilaa uu ka taabay oo ka qabtay labadoodiiba dabadeedna dhegta dhiigga u daray faal tusaalahani wuxuu tilmaan u yahay kuwa dadka u dharbedesha oo hoostana liciinka ka ah dushana biyo madaadshaha iska dhiga waana calaamadaha munaafiqiinta kuwa oo muujista wax aanay ahayn alla wuxuu quraanka ku yidhi وإذ رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون هذا أركتم منافقين والله يعبي شركود موقودة هذا هدلانا واد دغيسان هذا الكودة waxaad si moodaa dugubyo la tiirtiiriyay qayladii yeedhana way ka cabsadaan waa col kuwaasi eebana hal lacnado ee xagee loo dufsaday مركلنا ألا وحيري إن المنافقين يخادعون الله وهو خاطعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مدبدبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له السبيلا منافقين توحي دكري إيه اسكدي اسنو دكري أو أوال مرين markay u istaagaan salaadana way istaagaan iyagoo wahsan oo istusi dadka mana xusaan eebe wax yar mooyee waxayna ku noqon wareeri arrintaas dhexdeeda kuwaasina lama jiraan kuwaana lama jiraan
cidduu dhumiyo eebbe uma heshid waddo cid hanuunin iska jir sifahan dadka leh allah kaa ilaaliye sheekada 25aad الرجل والمكره nin iyo dhagar waabaa nin iibsaday orgi buuran oo hilib badan leh orgiguna wuxuu ahaa mid midab madow wuxuuna ugu talagalay inuu qasho oo hilibkiisa sadaqadaysto oo masaakiinta ka dhargiyo wuu la dhaqaaqay isagoo xadhig ku hoggaansanaya waxaa arkay qolo dhagar qabayaal ah wayna u shireen si ay uga khiyaamaystaan orgiga meelo marinkiisa ah oo kala durugsan ayay istaageen kii u horeeyay ayaa ku yiri war ninkow waa maxay eyga aad wadataa lama uu hadlin ee waa iska dhaafay meeshii labaad ayuu mid kale ugu yimid wuxuuna yiri waxaan u malaynayaa inuusan ninkani nin hagaagsan ahayn waayo akhyaartu ay ma kaxaystaan ninkii wuu shakiyay waana iska socday meeshii saddexaad markii uu yimid ayuu kii taagnaa yiri warniyahow miyaad ugaarsi tegaysaa oo sidaasaad eyga u wadataa markan wax shaki ah ma gelin oo wuxuu mooday in kii ka iibshay indha sarcaad ku riday wuxuuna orgigii ka furtay xarigii oo waa sii daayay oo hor alle u dhaqaaqay iyagiina orgigii intay qabsadeen ayay qasheen oo qaybsadeen faallo tusaalahani wuxuu tilmaan ku toolmoon u yahay ciddii hadalka dadka iska qaadata iyadoon ka fiirsan oo ka fikirin waxayna hadal raacidoodu u keentaa khasaare iyo dhimasho sheekada 26aad الرجل واللص nin iyo tuug waxaa la yiri waabaa nin sacir maan lahaan jiray wuxuuna u daaqiyay dooxo waxaasi raacay nin tuug ah oo doonayay inuu saca ka xado waxaa kaloo isna raacay cadow uu ninku lahaa tuugii ayaa ku yiri war maxaad ahayd wuxuu yiri waxaan ahay nin cadow ah oo ninkani leeyahay waxaan rabaa inaan raaco oo markuu seexdo aan ceejiyo adiguna maxaad doonaysaa tuugii ayaa yiri waxaan rabaa inaan caawa gurigiisa u raaco oo markuu seexdo saca ka xado way israaceen iyagoo labadoodii saaxiib u noqday ninka dhibtiisa ilaa la gaadhay fiidkii ninkii sicii ayuu xaraystay intuu maalay oo markuu casheeyay seexday tuugii ayaa wuxuu ka baqay in ninka cadowgiisu ku bilaabo dilka oo uu markaa ninku qayliyo oo uu saca ka haysan kari waayo oo meesha waardiye laga qabto markaasuu yiri sug ilaa aan saca soo ka haysto oo aadna markaa ninka disho cadowgii ayaa yiri maya horta waan dilayaa markaa saca ka hayso mid waliba wuu diiday kii kale inuu ku hormaro kama ay gudbin inay murmaan oo iskhilaafaan ilaa ay isku xanaaqeen oo tuugii qayliyay isagoo leh war ninkow kani waa cadowgaagii oo doonaya inuu ku ceejiyo cadowgiina qayliyay oo yiri war ninkow kani waa tuug doonaya inuu saca ka haysto oo ka xado waxaa kacay ninkii iyo dariskii labadii xumaan wadana waa carareen faallo tusaalahani wuxuu tilmaan cad u yahay ciqaabta alle ee ciddii u kulanta inay cid dhibaato u geystaan waxayna cirib dambeedkoodu noqdaa iskhilaaf iyo kala tag sheekada 27aad الثعبان والدفاد mas iyo rah waxaa la yiri mas ayaa waa gaboobay oo awoodi waayay inuu qaarsado wuu iska socday ilaa uu gaaray durdur biyo ku jiraan oo rah badan joogo wuxuuna ahaan jiray mid ka ugaarsada raha wuxuu fadhiistay meel ishii durdurka u dhow wuxuuna iska dhigay mid murugaysan oo warwarsan mid rahi kamida ayaa ku yiri maxaa ku haya oo aad la murugoonaysaa wuxuu yiri oo maxaanan la murugoonayn iyadoo noloshaydu ku xidhnayd ugaarsiga raha oo balaayo iga soo martay balaayada
oo iga xaaraantinimaysay inaan rah ugaarsado oo xataa haddaan qabsado aanan cuni karayn oo dhuunta la ii fadhiyo. Rahii ayaa orday oo wuxuu u tegay boqorkii raha oo wuxuu u sheegay wixii uu ka maqlay maska. Boqorkii ayaa soo aaday maskii oo su'aalay wuxuu maqlay inay run tahay iyo in kale. Maskii baa yidhi run weeye. Wuxuu yidhi boqorkii rahu oo waa sidee sidaasi waxaasu siday u dhici karaan. Maskii ayaa yidhi anigu ma awoodo inaan rah cuno ilaa wixii uu boqorka rahu igu sadaqadaysto mooye wax kale. Rahii ayaa yidhi waa sidee sidaasi. Maskii ayaa yidhi maalin ayaan rah bacsaday si aan u cuno wuxuuse ila galay guri nin leeyahay. Rahii gurigii ayuu galay anna waan ka daba galay anuu raadkiisii ku jooga. Gurigana waxaa joogay wiil yar oo ninku dhalay. Waxaan qabsaday fartii wiilka anuu rahii moodaya waan qaniinay oo wiilkii waa dhintay. Waxaan soo baxay anuu cararaya ninkiina waa i bacsaday wuu i habaaray oo wuxuu yidhi sidaad wiilkayga yar xaqdarro ugu dishay waxaan ilaahay kaaga baryayaa inaad dullowdo oo hoogto oo faras u noqoto boqorka raha oo hilibka rahu xaaraan kaa noqdo ilaa wax uu kugu sadaqadaysto boqorka rahu mooye wax kale. Markaa waxaan kuugu yimid inaad ifuusho anoo kuu hoggaansan oo raalli kuu ah. Boqorkii raha ayaa jeclaystay inuu fuulo maska wuxuuna mooday in arrintaasi sharaf iyo sarrayn u tahay. Maalmo ayuu fuushanaa rahii maskii hase yeeshee maskii ayaa yidhi waad aragtay oo anigu mid laga fogeeyey raha cunidiisa ayaan ahay mana lihi awood ugaarsigiinna wixii aad adigu iga siiso oo ii garato mooye boqor ii yeel bil aan ku noolaado. Wuxuu yidhi boqorkii rahu xaq ayaad iigu leedahay wax aad ku noolaato oo ku taagnaato. Wuxuuna amar ku bixiyey in maska aroor walba 2 dhayla ah oo raha loo keeno hawlyari. Waa uu ku noolaa mana dhibin khiyaamadiisu cadow ka liita waxayna u noqotay nolol faallo. Tusaarahani wuxuu tilmaan u yahay ciddii ku soo xerogelisa nolosheeda dulli iyo isliidid kuna raalli ahaata waana arrin xun oo aan ka mid ahayn dhaqanka muslimiinta aanayna u habboonayn qof muslim ah inuu naftiisa dullinimo u bandhigo isagoo doonayo hurmo awalba alle u ballan qaaday. wuxuuna yidhi alle sareeye a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه.